Generaal Ibrahim Maxamed Maxamuud taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay xilkii loo magacaabay kaasoo uu kala wareegay saraakiisha Odawa Yuusuf Raage. Munaasabadani waxaa goobjoog ka ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre, Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi, xildhibaanada labada gole, golaha wasiirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xubno kale oo ka socda beesha caalamka iyo taliyaha booliiska ciidanka Soomaaliyeed. Generaal Odawa Yuusuf Raage taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in mid ka mid ah saraakiishiisa uu xilka ku wareejinayo. Daawadeen la daawo khudbadii taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Ibrahim Maxamed Maxamuud. mudane Aliil Marweyn salaan kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina ka qiro inaan aqbalay mas'uuliyadda weyn ee la igu aaminay ee ah inaan hogaamiyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah gaashaanka ilaaliya karaamada, sharafta, madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. sidoo kale waxaa farxad ii ah inaan xilka kala wareego maanta taliya Odawa Yuusuf Raage oo aan la soo shaqeeyay labadii jeer uu hogaaminayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anoo xilal kala duwan haya. tani waxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah u tahay ama uga dhigan tahay fursad dahabi ah oo lagu tijaabinayo tayada iyo hanaanka maamul ee jiilka cusub ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ku kalsoonahay waxqabadkooda shaqo. haddaba mudane Aliil Marweyn waxaa hubaal ah in mas'uuliyadda ay tahay mid culus kuna soo beeganta waqti adag una baahan dhammaanteen inaan iska kaashano difaaca qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka kuna bixino naf iyo maal sidaan dalkan looga difaaci lahaa cid waliba oo khatar gelin karta amnigiisa, horumarkiisa iyo siyaadadiisa. saacadan aan joogno dhammaan gobollada dalka ciidamo Soomaaliyeed ayaa kula dagaalamaya cadawga argagixisada kuwaasoo fagaaraha dagaalka ka muujiyay geesinimo, hal adayg. waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan iyo duco wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee doortay naftooda inay u huraan si ay u difaacaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. mudan Ra'iisul Wasaare waxaan ka codsanayaa inay u ogolaatid sidoo kale inaan halkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu gudbiyo fariin ah inay yihiin geesiyaal dhab ah, hal adag oo aan cashir aanan la ilaawi karin mar waliba u dhiga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan diidan horumarkiisa. waxaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxaa tihiin gaashaanka ummadda Soomaaliyeed ee hortaagan cadawga wax magaratada ah ee aanan lahayn wax diin iyo dhaqan toona kuna dhisan afkaar qaldan. waxaan hubaa inaad baabayn doontaan dalkana aad idinka u hari doontaan mar dhowna aan insha Allah huwan doontaan taajka iyo sharafka cisdiga guusha insha Allah. kadib la wareegidda mas'uuliyaddan waxaan sii xoojin doonaa dadaaladii horumarineed waxaana markasta awood isugu geyn doonaa sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu noqon lahaa ciidan magac ahaan iyo awood ahaan ka dhex muuqda caalamka anigoo kaashan doono walaalahay saaxiibaday saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. inta aan xafiiskan aan maanta la wareegayo joogo waxaan ka shaqayn doonaa sare u qaadista tayada dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isugu jira maamul iyo howlgal intaba anigoo ku soo koobi doono qodobadan hoos ku xusan. waxaan xoojin doonaa nidaamka isla xisaabtan ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kor u qaadista tayada iyo awoodda sirdoon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan xoogga saari doonaa dhismaha iyo tayada talisyada noocyada ciidamada iyo taliska ciidanka gaarka ah si kor loogu qaado awoodda howlgal ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan la dagaali doonaa isticmaalka maandooriyaha iyo wax waliba oo lid ku ahaanshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.